xurgufta iyo masar siyaasadeedka madaxda maamulada Soomaaliya ayaa banaanka timid kadib maalmo ay Muqdisho u sacabtumaysay hogaamiyaasha labada maamul ee Puntland iyo Jubbaland. tan iyo markii uu madaxweyne Farmaajo aqbalay shuruudii ahayd inuu shirka Muqdisho keeni doono saddexda maamul goboleed ee maqan, waxaa socday kulamo qadka telefoonka u dhaxeeya maamulada shirka ka maqan ee Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed. saddexda nin ee hogaamiye maamulada ka maqan shirka Muqdisho ayaa la soo wariyay inay ka careysan yihiin maqaamkii la siiyay madaxda Puntland iyo Jubbaland oo diiday inay tagaan shirkii Dhuusamareeb 3 iyo sidoo kale wararka sheegaya in la isku raacay in wax laga bedelo heshiiskii lagu gaaray Dhuusamareeb. ila ka tirsan xafiisyada maamulada Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa ku waramay inay saddexda maamul samaysan doonaan aragti siyaasadeed midaysan, gaar ahaan mowqifkooda ku aadan shirkii Dhuusamareeb 3 oo ay rabaan inaan waxba laga taaban. Galmudug, Hirshabelle iyo Koonfur Galbeed ayaa dareemay in aanay filla Soomaaliya siinin maqaam u dhigma midka ay siisay Puntland iyo Jubbaland. maanta ay hogaamiyaasha Galmudug iyo Hirshabelle tagi doonaan magaalada Baydhabo, waxaana ay bari yeelan doonaan shir hal maalin ah oo daaran 3 ujeedo. 1 inay muujiyaan miisaan siyaasadeedkooda xilliga kala guurka ah. 2 in shirkii Dhuusamareeb 3 uu yahay lama taabtaan, haddii wax laga bedelayana inay Dhuusamareeb noqoto meesha lagu furi doono buugaas. 3 inay aragti ahaan u midoobaan hanaanka doorashooyinka iyo xilliga kala guurka si ay isaga tiiriyaan Puntland iyo Jubbaland. xogaha kale aan helnay waxaa ka mid ah inuu Qorqor rabo inuu Waari lafta gareen ku qanciyo inay tagaan magaalada Dhuusamareeb oo ay ku dhawaaqaan Dhuusamareeb 4, halkaana lagu qasbay inay yimaadaan madaxda Puntland, Jubbaland iyo hoggaanka dowladda federaalka ah oo isku mari la Muqdisho. shirkan cusub ee Baydhabo wuxuu abuuri karaa xiisad siyaasadeed oo hor leh, waxaana uu burbur toos ah ku yahay isfahamkii maamulada ee shirkii Dhuusamareeb 1. wuxuu kaloo sababi karaa inay abuuranto xiisad cusub oo u baahan in marka hore iyada la xalliyo inta aan la gaarin heshiis doorasho, ayay leeyihiin dadka isha ku haya xilliga kala guurka ee Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa dadka qaarkii ku doodayaan inuu isagu xaaladaha qaar gacantiisa ku abuuray si loo sii kala fogaado, kadibna looga fursan waayo muddo kordhin loo sameeyo hay'adaha dowladda ee hadda jooga, iyadoo marmarsiyo laga dhiganayo isfaham la'aanta maamulada. dadka tuunkaas qaba ayaa daliil ka dhiganaya hadalkii Axmed Madoobe ka sheegay aqalka sare ee ahaa in shirka Dhuusamareeb 3 la soo xiray markii la ogaaday inay tagayaan isaga iyo hogaamiyaha Puntland. waxyaabaha shakiga u leexinaya dhanka filla Soomaaliya waxaa ka mid ah in saddexda maanta isugu tagaya Baydhabo in saddexduba ay toos uga amar qaataan madaxtooyada Soomaaliya, waxaana caadiyan adag inay ka hor yimaadaan qorshooyinka filla Soomaaliya. taliyaha Niza Fahad Yaasiin Xaaji Daahir oo isagu haya faylka saddexda maamul ee Hirshabelle, Koonfur Galbeed iyo Galmudug ayaa dadka qaar aaminsan yihiin inuu gacan weyn ku leeyahay hawshan. safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya oo dadaal badan ugu jirta maalmahan in Muqdisho la isugu wada yimaado ayaan weli quusan, waxaase wararku sheegayaan in aanay gacan ballaaran ka helin madaxtooyada Soomaaliya oo la tuhunsan yahay in aanay hawsha daacad ka ahayn. tallaabadan ayaa jahawareer ku ah dadka sugaya inay doorashada Soomaaliya xilligeeda ku dhacdo. haddaba maxay kula tahay xiisadan cusub ee soo korortay?